عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه حاج وانفي عنا سمو ناكسني الحمد لله. شقة أدق بعد قبتين الله ما شاء الله. waxaan ku yiri oo qalabkan mayada loo xidhaa الله waxaan siiyay xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga. waaw bal waxaan ku yiri yaa kuma soo dhawaanaysa Soomaa xagee ka arki bahashan shinideed dhaqday baan ku hamiyay inaan dhaqo waayahay marka waxaan si bal xaajiga sida nacfi looga helo dhibteeda iyo de xaaladeedu say tahay ad soo ogaatid waaya waqti wanaagsan baad la soo kulantay haye maxaa yeelay berigii hore gaaguran geed ka qornay ayuu man geedaha sursuri jirnay haye 6 bilood 3 kiilo ka heli jirnay 3 kiilo markaan ka gurayna 3 kiilo qori daba intaan sidaa u gelino ayay deedna lagu xanaaqaysay aaga dadka jooga iyo xoolaha jooga ayay gam ka siinaysa maanta xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga ayaa gaagurta casriga ah na siiyay waxaan ku weydiiyay gaagurtan casriga ah iyo tan kale maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin tani hore ee gaagurtan geedka aan ka qoraynay ee casri ma ahayn waxa laga helayaana 3 kiilo yahay 3 kiilo wani ku sheegay tani casriga gaagurta casriga 15 kiilo bishii dheeraadkaas gaagurta casriga ay la timid xagu ka yimid baad u malayn dhaqashada casriga dheeraadka keentay dhaqashada casriga dheeraadka keentay waa waka walla waxa hadal waxaan ku yiri shaqada waan galayaa haye adaa igu macallina qofkii dadaalaya shaqaysanaya hal abuur samaysanaya xafiisku waa u diyaar waa soo garaacaya xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga khabiiray leeyihiin yaga lagu soo dirayo oo ku macnaynayo oo mar walba kula soconayo khabiir shinida u gaar ah bishiiba mar ku oo cilmigeedii leh ay ولا معان وفي عنتها وحقاد لقوله أيهاي ما كان ويديو أنا ويا إرادة ويا حقوق تجي بالله حاله دقدا حاله ولا شيء يا مديك جنا واحد يقول يا بني وواحد سويان شغدني وشغد غني ما قرأتها يا وكنت نادر كيس مارك وحويان دقيقة مركل الربيع وكنت يسي وحويان يهيب كيس يوحي سولر ويكون أكسيهين كوي بناك يا عتري كي هو وحلل تري سندكي لحدا حبو هاي كان سندكي 300 إلى 20 حبو ولا ما سندكي 300 إلى 20 حبو إلى 20 حبو هاي هلكي دقاقة ده هاي سندكي وحي كوسو ساريسا 200 إلى لحدا بر هل دقاق هلكي دقاقة ده هاي كنت دقاقة دول مركز هاي سندكي وحي كوسو ساريان 2 مليون إلى 500 إلى لحدا كن أو بر أو ما شاء الله ووحن كليا وتقول ما قرتها عقتنا هيئون ولا لا كبيرين أقلكم دحتها ولا عقتنا نوع مالي بسميته ما يوابلن كاسي صح ولا ما وحكي ترى ولا له خبير رأي يقول كنت تخصصي لغشة الدقاق عصري قاع ومروا البحالة دي سلا صعنية ده ولا الوظيفة بكوانا إلا برسين iyaga waxa weey qaabkii ku tusaya iyaga ku macallinkii ku soo diray iyaga aroor walba la soconaya sida ilmaha loo eego aroor walba aroor walba la eegaya taa waa sax walaalo saayay saayay hayo walaalo lacag iska taalo aan walaalo ku shaqeeyadaana lacagtu ilaa socotay weeyaan oo ay shaqeyso lacag lacag hayo walaalo ila farsamay walaalo ila farsamay hayo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سليهي ولا لساتهي. وان في عنا ولا. إلهي دقي أدبر في عنا. أدبر ريرك اللي وقف في عنا. إلهي دقي. برتابا كسر العمات وصوب قالك. يا ما دبعت روا. ما ولا الواحد بمتشرين. ده ولا شجار بنسري. وصحيح. حولين هالكابور يا هالكاسي وبلا وحب الله هين. يعني كل كوير وحيسرها. مركا ولا شيء وحطونا نسري. هذا كل هذا ير. ولا حولها جم حكوا دعي. حولها جم حكوا دعي. وحي قد ما وعي. وحويان ولا horta tala xuma ku haysta tala xumada ku haysay maanta adoo inta soo geelalay kamaadan baahateen maanta wax la'aan maxaa ku dhigiba geelaaga ood guri intaad u samayso aad hoyga halka uu iskaga nasto sidaas oo kale anigu aan ugu sameeyay aad ugu samayso ood calafka siiso fadhiga ku siiso xoolaha waxaan siiyo halkaale ku tusee bal away oo kana muxuu ahaa
miyaad garanaysaa maya waa nafaqada daqiiqda isku dheeli tiran ma garatay haye xooluhu waa cad iyo caano markuu kaa cuno cad iyo caano unbaad ugu iman weliba say u jecel yihiin baa kaaga daran ay u jecel yihiin cad iyo caano unbu weeyaan markaad kaa siiso ta kale la yaab kalaan ku tusi haye ee ka yaab badan tan haye kaale haye tan ma arkaysaa soo dhagax ma moodid ma dhagax baa waa nafaqada adag ee geela baa la yidhaah haye nafaqada adag ee geela 100 gram baa neefka ku filan maalinkii haye kowde haye marka soo 100 neef oo geela ayaa intaa wada leefaysa oo way leefi haye cad iyo caano unbaa loogu imanayaa oo waxaan u bad siisaa un waxay u cayileen oo waayo haye neefku markuu nasto ayaa cad iyo caano laga helaa soo waxaad garatay maaha 100 geela adigoo leh 10 geela ood nasiso ayaa horta kaaga fiican soo markay si loo lisayo halka neefeede 12 litir oo caano ah ayaa laga lisayaa maanta kaambal caana balday adu waxaan ku wari inta wiilku ku aad ku dhiibay soo markaysid ma 3 neef ama soo labo ma 3 neef soo ma moodi waa hal neef kowde waliba 2 jeer baa la lisay marka dhaqashada casriga heede ayaa dheeraad kale dhaliilaynu leenahay dadka kalena dhaafeen oo dhinaca maalka ah haddaan meesha soo dhigo xoolaheenna waxa dhibaynana dhayladoodii iyo caanahooda naga dhima dhengada aanu sidaniyo meeldheerufoofkiiyo dharaarkululhayaankiiyo dhalandhoolka suudiga oo ka raacana ku dhimashaa taana waxay ku dhaamaan oo uu hilib dhammaystiran dheegooda fuulaa dhayda iyo darartana 3 laab u dhiiqaan markaad duunigoodiiyo dhulka wax ugu beertee calaf dheeli tiran iyo biyaha laysu garab dhigo ee dharaartii timaadaba dhowr saaxadh joogaan ee ka nastaan dhibaatada dhaqashada casriga ah dheeraad ka keentay dhabka hadalkan talada dadkayga ku dhaqano ayaan idin dhinac marin shinni malab dhitaysoo miida aan ka dhuranana rabbaa nooga dhigay iyana waxa dhibkeeda dhaxanta iyo cadceed iyo dayac inaad ku dhowrto gaagur dhuuban lagu shibo taana waxay ku dhaantaa gaagur dheeli tiran oo inta looga dhigo hoy rug wanaagsan lagu dhaqo dhaqashada casriga ah dheeraad ka keentay dadkayga ku dhaqano ayaan idin dhinac marin dhanka kale waxaa jira dharaartii timaadaba digaag beedka noo dhala oo kii hore ka dhumuc weyn dheef iyo ka tiro badan dhaqashada casriga ah dheeraad ka keentee dadkayga ku dhaqano ayaan idin dhinac marin fariintan waxaa soo diyaariyay xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dawladda deegaanka Soomaalida